أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صادق الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa halkan ka hadlaya Mahdi Muuse Isaaq oo ku magacaaban wasiirka warfaafinta ee Awdal State. waxaan halkan u soo fadhiistay inaan hambalyo iyo bogaadin u diro madaxweynaha cusub ee Soomaaliyeed Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta cod aqlabiyada ku helay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliyeed. haddaan nahay haddaba maamul goboleedka Awdal State waxaan leenahay madaxweyne mabruuk, alf mabruuk. ilaahay xilkaa lagu doortay ee ummadda Soomaaliyeed dhabarka kuu saartay, ilaahayna kuu doortay inuu ilaahay kugu asturo oo aad noqoto kii Soomaali gaadhsiiya ilowsiiya wixii ay tabanayeen rubuc qarnigii la soo dhaafay oo ay ku habsatay musiibo bini aadan iyo tu ilaahayba ay ku habsatay. insha Allah ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu xilkaasi ku fududeeyo oo uu kaaga dhigo wax aad u fudud oo aad si sahlan u gudato, ummadda Soomaaliyeedna ay diyaar kuugu tahay, kuguna hambalyeynaysaa ay kuu soo dhaweynaysaa. madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo. waxaa maanta ka caddaatay goobtaasi lagu doortay madaxweynaha cusub Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud in ay soo noqotay jacaylkii Soomaalinimada, wixii ay Soomaalinimadu ahayd oo ay maanta halka ka muujiyeen xildhibaanadii doorashadaasi codadka bixiyey in ay saafi ka yihiin, inay yihiin dhuuniqaatayaal iyo inay ku codeeyeen qabyaalad. waxaa ka muuqata halkaa in si daacad ah oo ilaahay ku ogyahay dadkaasi ay xilkooda u guteen, waayo lama filayn, ninna kuma seexanin nin muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo waddankiisa daacad u ahaa oo ummaddiisa wax barayay oon habeen ka dhixin intii ummaddu dibadaha uga baxday waddankooga. ninna ma filaynin inuu nin sifaha lihi uu u soo bixi doono madaxweynaha Soomaaliya. madaxweyne waxaan ku leenahay kii ilaahay soo diray baa tahay, kii ilaahay ummaddan uu ugu soo dhiibay risaalada ayaa tahay Soomaaliyeed, si uu uga saaro dhibka iyo tacadiga 25 sano la soo dhaafay ku habsaday ee soo gaadhay. madaxweyne waxaan ku leenahay haddaan nahay reer maamul Awdal State, ummadda Awdal State waxay ku leedahay soo dhawow, waanu ku soo dhaweynaynaa. waxaanan diyaar u nahay in aan garabkaaga joogsano oo aanu kula adkayno midnimada Soomaaliyeed oon hore haddaan nahay reer Awdal aan horeba annagu diyaar ugu ahaan jirnay waxa la yidhahdo Soomaalinimada iyo midnimada. sida taariikhdu sheegaysa cid walbana og tahay mudane madaxweyne, reer Awdal waxay ahaayeen ama waxay ka mid ahaayeen dadkii suurtageliyey in Soomaalidu ay mid noqoto markii gobonnimada la qaatay 1 July 1960 1960 maalintii gobonnimada la qaatay dadkii mideeyay bay ahaayeen ee mid ka dhigay. gobollada waqooyi gobonnimada waxay qaateen 26 June 1960 laakiin sabab duruufo jiray awgood oo Soomaalinimadu ay ka mid ahayd baa reer Awdal iyo reer Khaatumo waxa ay go'aan ku gaadheen in ay calanka geeyaan Soomaali weyn si ay Soomaalinidu noqoto. maantana dadka reer Awdal waxay diyaar u yihiin raadinayeenna 25 sannadood Soomaali burbursanayd, waxay raadinayeen inay Soomaali mid noqoto, inay Soomaalinimadii soo celiyaan, inay ummadda Soomaaliyeed mideeyaan. alxamdulillaah ilaahay baa maanta keenay. waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa inaan mar labaad aragno ummadda Soomaaliyeed oo isku caloolsan oo Soomaalinimo u wada hadasha oo insha Allahu ilaahay wax khayr qaba uu adiga kuugu soo dhiibo oo ay ku degaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.